wiilkan xaaskii labaad oo aabihiis oo ahayd gabar yar oo aad u qurux badan ayuu jacayl xad dhaaf ah u qaaday, laakiin 10 sano kadib waxa dhacday sheeko xasaasi ah oo qof walba oo maqla uu madaxa gacmaha saara doono. halkani waa waayaha dunida. saaxiibayaal ku soo dhawaada muuqaal xasaasi ah, qiso nooceeda aanan horey u tabin. ha hilmaamin daawada muuqaalka inaad like saarto una sii share gareedo dhammaan saaxiibada friendiska kula ah. soo dhawaada mar kale. qoyskan waxay ka koobnaayeen aabe, hooyo iyo wiilkooda oo lagu magacaabo Osama. waxay ahaayeen qoys ku nool nolol caadi ah. aabuhu wuxuu ahaa nin dabeecadiisu ay adag tahay, laakiin wuxuu ahaa nin hantiile ah oo hanti fiican haysta oo nolol haaya ku nool. aabahan maadaama uu hantina haystay wuxuu ahaa aabbayaasha aaminsan inay xaasas badan guursadaan. xilligaas oo da'diisu ay ahayd 47 sano, wiilkiisana uu gaaray 17 sano. markuu go'aankan qaatay Osama aabihiis, xaaskiisu sida dumarka caadiga ay sameeyaanba arrintan waa ay diiday gebi ahaanba, waana ay kasoo horjeesatay fikirkiisa. laakiin maadaama uu ahaa nin dabeecad adag, ma uusan kala jeclayn inay diido iyo in kale. go'aankiisa waa uu qaatay, wuxuuna go'aansaday inuu guursado gabar yar oo dhallinyaro ah oo 18 jir ah. wiilkiisa Osamana ka weyn 1 sano oo kaliya. odagu markii uu guursaday, Osama hooyadiis go'aan ayay qaadatay, waxayna aaday gurigii walaalaheed iyo hooyadeed oo waa isaga tagtay. Osamana aabihiis iyo xaaskan cusub ayuu iskala noolaa oo qoyskan ayuu ku soo biiray. markan waxaa hal qoys noqday Osame, aabihiis iyo xaaska aabihiis oo lagu magacaabo Farax. Osama aabihiis markuu gabadhan guursaday, dabeecadihiisa, noloshiisa iyo habdhaqankiisa oo dhan waa ay bedeshay maadaama uu gabadhan aad u jeclaaday. shaqooyinkiisa waa uu soo koobay, wuxuuna bilaabay gabadhan inuu jacayl iyo waqti ku filan siiyo. maadaama odagu uu yahay nin weyn oo 50kii madaxa la sii gelaya, gabar yar oo dhalinyarana uu helay. shaqooyinkiisii iyo waxyaalihii muhiimka u ahaayoo dhan ayada ayuu ka hormariyey. waqtigii uu asxaabtiisa la qaadan jiray waa uu soo koobay, guriga ayuuna ku soo koobmay. Osama wuxuu arkay aabihiis oo gebi ahaanba isbedelay, qof kale noqday. aabihiis oo ku mashquulsan gabadhan yartaa wixii ay ka dalbato oo kaliya inuu fuliyo. gebi ahaanba wiilkiisii uu farxadda ku soo koriyeyna waa uu hilmaamay. Osama mar wuxuu dhibsaday sida gabadhaani aabihiis qalbigiisii oo dhan ay ula wareegtay oo ay asaga meesha uga saartay. kadibna wuxuu go'aansaday inuu gabadhan la saaxiibo. labadoodu maadaama ay ahaayeen dhalinyaro isku da' isku guri jooga, saaxiibo ayay noqdeen. dad mar walba isku dhow, wada qosla, wada kaftama, wada sheekaysta, xitaa hawsha guriga wada qabta, cuntada wada cuna oo wada karsada. Farax Osama wuxuu noqday qofka kaliya oo marka ay guriga joogto ay weheshato. Osama uma uusan qadari jirin sida hooyadiisoo kale ama eedadiisoo kale, maadaama ay ahaan dhalinyaro isku da' ee wuxuu ula dhaqmi jiray sida gabar yar oo walaashiisa oo kale. ugu dambeyn Osama aabihiis wuxuu arkay awoodda saaxiibtinimadooda, dad mar walba wada qoslaya, wada sheekaysanaya, wada kaftanaya. odaga marka qaaqaayir yar ayaa u daarmay, shaki yar ayaa galay oo aan badnayn. wuxuu bilaabay odagu inuu la socdo waxyaalaha ay sameynayaan, uu u fiirsado oo uu dabagal ku sameeyo dadkan. ugu dambeyn maalin maalmaha ka mid wuxuu u imaaday wiilkiisii Osama iyo xaaskiisii Farax oo jikada ku wada jira, qado wada sameynaya, qudaartii wada jarjaraya, wada qoslaya oo sheekaysanaya oo kaftamaya ayuu arkay. waa uu fiiriyey, waana uu ka gudbay oo qolkiisa ayuu iska aaday. laakiin arrintaas asaga shakigiisa ayay sii xoojisay. intaas waxaa u sii dheeraatay odaga inuu mar walba arko Osama iyo Farax oo TV-gii wada daawanaya, telefoonka wada daawanaya, habeenkii oo dhan qosol iyo kaftan waqti dambe ku gaaraya oo ku dhafraya ayuu arkay. ugu dambeynna wuxuu u soo dhajiyey jadwal ah 12 habeenimo haddii la gaaro in ayaduna ay gurigeeda soo seexato, wiilkiisa Osamana uu qolkiisa aado oo uu qolkiisa seexdo. jadwalkiina waa la dhaqan geliyey oo marka xilligaas la gaaro qof walba qolkiisa ayuu seexan jiray. mar wax yar jadwalkii lagu dhaqmay ayuu habeenada ka mid odagii soo kacay. sariirtii iyo qolkii oo dhan ayuu fiiriyey, xaaskiisi waa u waayay oo waa ay maqan tahay. wuu istaagay, musqusha ayuu xoogaa ka dhageystay, wax shanqara waa uu ka waayay. banaanka ayuu ka raadiyey, waa uu waayay. ugu dambeyn wuxuu toos u aaday qolkii uu deganaa wiilkiisa Osama. qolka iridiisa markuu tagay wuxuu arkay albaabkii oo wax yar furan. saaxiibayaal waxaan ka codsanayaa inaad booqataan YouTube-kaygan waayaha dunida channel, aad subscribe dhahdaan si aan u gaarno 20,000 oo subscribers. Facebook xitaa shirkadii lahayd ayaa ka guurtay, waa lagu kala cararay. dhankaas iyo YouTube ayaan rabnaa inaan u wareegsano. YouTube-keenan booqda, subscribe dhaha, halkaasna aan ka wada soconno. markii uu albaabka furay muxuu arkay? markii uu albaabka furay ee uu gudaha galay, wuxuu arkay xaaskiisii Farax oo taagan, telefoonkeeda isticmaalaysa, iyo wiilkiisii oo sariirtiisa iska jiifo oo busta huwan oo iska hurdaaya. kadibna shaydaanka ayuu iska naaray, xaaskiisa ayuu watay,
qolkiisa ayuu tagay halkaas ayayna iska seexdeen. maalmo yar markii la joogay Usaama ayaa aabihiis u yimid wuxuuna ku dhahay magaalo kale oo halkaas ayaan rabaa inaan aado oo dalxiis u aado muddo 3 maalinna waan ku maqnaanayaa. aabihii wiilkiisa lacag ayuu siiyey wuxuuna dhahay fasax ayaa tahay intaad rabto ayaad soo joogi kartaa. Usaama aabihiis wuxuu u wacay mid ka mida wiilashii Usaama saaxiibka la ahaa oo safarka la aadayay weliba wiilkii ugu dhawaa ayuu u wacay wuxuuna ku dhahay waxaan kaa rabaa inaad wiilkayga dhaqdhaqaaqiisa la socotid wax walba uu samaynayo gabdhaha uu shukaansanayo xitaa inaad la socoto ayaan rabaa waxaan uga shakisanahay in uu dad aan fiicnayn xiriir la leeyahay markaad soo laabataanna haddii aad khabar fiican ii keento hadiyad qaali ayaan ku sii doonaa. wiilkii dhallinyaradahana wuu farxay maadaama ninkan uu yahay nin hantiilo ah hadiyad qaaligana uu u ballan qaaday. markii ay safarka ka soo laabteen dhallinyaradii Usaama saaxiibkiis aabihiis ayuu u yimid waxa uuna u sheegay wax walba oo uu soo arkay. Usaama saaxiibkiis wuxuu dhahay horta wiilkaagu dadka uu sida gaarka ula hadlaayo anigu ma arkin mana aqaano laakiin mar walba qof ayuu qoraal anigu aanan fahmayn kula sheekaysanayay saacad kasta iyo daqiiqad kastana qofkaas waa uu ku mashquulsanaa. wuxuu ii sheegay Usaama qofkan mar walba uu la sheekaysanayay inuu yahay gabar ay isjecel yihiin oo lagu magacaabo Farax. odaga markaan wixiisu shaki waa ay dhaafeen oo waxyaalo badan ayaa u soo sawirmay. odagu markaan wiilkii hadiyadii uu u ballan qaaday waa uu siiyey laakiin go'aan cad ayuu soo qaatay. xaaskiisa ayuu u yimid waxa uuna ku dhahay alaabtaada qaado oo gurigiinni aad safar yar ayaan rabaa inaan u baxee. xaaskiina alaabteeda ayay aruursatay oo gurigii waalidkeed ayay aaday. markii xaaskiisu baxday ayuu wiilkiisii Usaama u wacay waxa uuna ku dhahay soo dhawow halkan soo fadhiiso su'aalo ayaan rabaa inaan ku weydiiyo maxaa idin ka dhaxeeya adiga iyo xaaskayga Farax. wiilkii waa u naxay wuxuuna dhahay aabbow gabadhaas waa eedaday aniga iyada waxba nagama dhaxeeyaan waalid oo kale ayay ii tahay adiga ayay xaaskaaga tahay maxaa naga dhaxay kara. laakiin odagu isma waalin wuxuu dhahay soo dhawow anigu wax walba waan la socdaa xiriir inuu idinka dhaxeeyana waan ogahay oo wax walba ayada ayaa ii sheegtay alaabteeda ayay qaadatay hadda waa aan furay oo gurigii hooyadeed ayay aaday anigu aabbaha ayaan ahay ha isku kaaya dirin ee sida ay wax u jiraan ii sheeg. Usaama waa uu soo dabacay markuu aabihiis intaas dhahay wuxuuna bilaabay inuu qirto wax walba oo ka dhaxeeyay asaga iyo xaaska aabihiis ee Farax. wuxuu dhahay aabbo waa runta xiriir ayaa naga dhaxeeyay oo wax walba sida ay kuugu sheegtay ayay u jiraan laakiin ayada ayaa iska kari waayay xiriirka ayada ayaa ii soo bandhigatay wax badan ayay daba socotay ugu dambeynna waa aan ka aqbalay. Usaame oo qirashooyinkiisii wata aabihiisna u cudurdaaranaya ayuu odagu maadaama uu masayray madaxii uu kala jabay dhiikarkiina uu ku kacay bur agtiisa yaalay ayuu soo qaatay wiilkiisa ayuu ku garaacay waa uu ku garaacay ugu dambeyn madaxa ayuu uga dhiftay sidaas ayuuna wiilkiisa ku geeriyooday. markii wiilkiisa ay naftu ka baxday shaydaanku waddo kale ayuu u qurxiyey baangad ayuu soo qaatay meydkii wiilkiisana waa uu jarjaray kiisas iyo boco ayuu ku kala shubay gaarigiisa ayuu ku qaaday meelo magaalada ka baxsan ayuu geeyey oo u qaybiyey oo qayb ayuu u aasay meydkii wiilkiisa. cid aan ilaahay ahayn oo ogeyd male markii uu falkan samaynayay. xaaskiisa ayuu u yeeray gurigiisa ayuu keensaday asaga iyo xaaskiisuna guriga ayay isaga noolaayeen. warqad baafin ah ayuu qortay booliiska ayuu u tagay waxa uu u sheegay wiilkiisa inuu waayay oo lala raadiyo. booliisku meel walba ayay ka raadiyeen baadigoob kasta ayay sameeyeen oo waa ay waayeen. kaliya wuxuu falkan markuu sameeyey kadib u sheegay arrintan wiilkii Usaama saaxiibkiis ahaa ee uu hadiyada sii jiray hadda ka horna sirta u soo sheegi jiray waxaana u sheegay inuu hanti iyo lacag siinayo oo uu qariyo. Usaama saaxiibkiisna kiiskan halkaas ayuu uga aamusay maadaama lacag loo ballan qaaday oo booliiska waxba ma uusan u sheegin laakiin odaga wixii rakaata ayuu uga dhigay mar walba lacag iyo hanti fara badan ayuu weydiisan jiray mar walbana odagu wixii uu weydiistay ayuu sii jiray ilaa ugu dambeyn odagu dalabkii wiilkan uu awoodi waayay oo uu dhahay war anigu lacagtaas ma hayo. laakiin cunugan dhalinyarada odaga mar walba codad ayuu ka duubi jiray mar walba uu lacag ka codsanayo iyo mar walba uu odagu la hadlaayo codadkiisa waa uu kaydsan jiray. muddo 10 sano ah markii ay sidii kiiskii u qarinayeen ugu dambeyn lacagta ayay isku fahmi waayeen. wiilkaana codadkii iyo wixii uu cadeymahayay booliiska ayuu u geeyey. ugu dambeyn odaygu waa la qabtay oo xabsi ayaa la dhigay 7 sano oo kaliya ayaana lagu xukumay. xitaa waxaa la sheegay 7 sanana maadaama uu ahaa nin hanti badan haysta inuu laaloosh iyo wax ku bixiyey oo uusan waqti badanba meeshii ku qaadan. sidoo kale wiilkii kiiskan qarinayay oo Usaama saaxiibkiisa ahaa oo lacagta ku qaadan jiray asagana xabsiga ayaa la dhigay oo dhowr sano ayuu xabsiga ku qaatay. muuqaalka like saara siina sheegareey saaxiibayaal sidoo kale channelka subscribe dhaha oo gambaleelka furta si qisooyinka xasaasiga ayaan halkan soo gelino ay idiin soo gaaraan aad ayaa u mahadsantihiin.